malaa'igtan quraanku sheegay aayadu ma waxa looga jeedaa malaa'ig xasanaadka iyo wanaaga qofka ka qoraysa iyo xumaha mise waxa looga jeedaa malaa'ig gaar ah oo waardiye ka hoo ilaalinaysa imaamku labadaba waa jamciyo wuxuu yiri labadaba waa looga jeedaa markaas wuxuu tilmaamay ibn kathiir afar malag baa qofka waardiye ka ah labo waa kuwa labada garab ka saaran midna midigtu saaran yahay xasanaadka iyo wanaagu qoraa midna bidixdu saaran yahayo sayi'aadka iyo xumaha sameynaysu qoraya labada kale midna xagga hore ayuu qofka ka socdaayo ka ilaaliya midna xagga dambe uu qofka ka ilaalinaya afarta malag baa qofka ilaalinaya saasu ibn kathiir qeexaya rahimahullah rahmatan wasi'a sida awgeed ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin malaa'ig baydin ilaalinaysa sharaf leh gobo khiyaara oo wax idin ka qoraysa ayada gabagabadeedu inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ayada laba macna ku jira ilaahay qoomna ma dooriyo ila ay iyagu naftooda dooriyaan mooyaane laba macna ku jira ayada say mufassiriintu sheegaan dad xumaani la degtay oo macaasi iyo amni daro iyo cibaado xumo iyo dhaqan xumo iyo dhulmi iyo mashaakil iyo dhibaato ay haysato oo aanay intay barkood kacaan inay wax hagaajiyaan oo islaaxiyaan oo ummadda toosiyaan aanay taladooda ku jirin inta ay tooda wax ka bedelayaan saasi ku noolaanayaan macnaha labaadna waxa weeye dad ilaahay nicmo uu siiyay oo barwaaqo ku nool oo diin iyo amni iyo iimaan haysta oo ladnaan haysta ilaahay nicmadii intuu gacantooda ka saaro colaad iyo balaayo ugu bedeli maayo hadaanay kasbanin sida ilaahayba u tilmaamay subhanahu jalla wa ala dhalika alla markuu tilmaamay dhalika bi anna allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay dad nicmo uu siiyay kama qaado ilaahay iska qaado bal u fiirso siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam magaaladii Makka dadkii deganaa Quraysh ee Carbeed ummad waxay ahaayeen ummadaha ugu liidata oo degtay gaalnimada dhaqan xumada dulmiga kufriga macaasida khamriga zinada ilaah ka fogaanshaha diin la'aanta guntay joogeen meeshii ugu hooseysay ilaahayna maxamed buu ka soo dhex saaray kaleey salaatu wasalaam waa kala dhex toosay war ilaahay kaliya caabuda war waxan joojiya waa la hadlay rag baa rumeeyo raacay Abu Bakar Umar Ali Uthman hebelo saxaabo Khadija koox bay noqdeen ummadda khayrka iyo wanaaga ku hagaysa diintoodii bay islaaxiyeen dadkii oo dunyadoodii bay islaaxiyeen mudayar oo hal qarni rubuci 25 sano gudahood bay waxay noqdeen adduunka kuwa ka sheegan bay noqdeen ilaahay ay gaareen ummadii caynka ahayd in uu nabigu yiri khayrun naasi qarni dadka waxa u khayr badan qarniga noole kuwa noolo saxaabadi ah iyo kuwa ku xiga taabiciinta iyo kuwa ku xiga ee atbaacu taabiciin ah ayaa ummadda khayr badan sida awgeed sunnaha ilaahay baa wuxuu yahay dadku hadaana iyagu isbedelin iska bedelmi maayaan maxaa la rabaa markuu dadku inay kacaan wax qabsadaan oo siday u noolaan lahaayeen dhaqankooda iyo diintooda dhaqaalahooda noloshooda amnigooda siyaasadooda dhan kasta inay maareeyaan markaas cidi u kacdo ilaahay waa la garab gelaya markaas hagaagaysa hadii kale xaaladu meel xun bay joogi doontaa nabiga ducooyinkiisa waxa kamida ilaahayow xagga hore iga ilaali ilaahayow xagga dambe iga ilaali ilaahayow midigta iga ilaali ilaahayow bidixda iga ilaali ilaahayow xagga sare iga ilaali ilaahaw xagga hoose balaayo ila go'da ilaahu haygu keenina iga ilaali nabiga oran jiray sallallahu alayhi wasallam qaybta labaad ee xifdiga ama ilaalinta ilaahay uu qofka ilaaliyo subhanahu wa ta'ala wa xagga diintiisa taasi dunyada ahayd xagga diintaada ilaahay ku ilaalinaya markaad ilaahay ilaashato oo alla ka cabsato subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu ka ilaalinaya subhanahu wa ta'ala weecashada iyo baydhbaydhka dadku qofku kolba dabayshi soo dhacda aad la ordayso diintaadu alla ku ilaalinaya caga adag bad ku taagnaanaysa in badan baad aragtaa
dad fara badan oo shalay wada ququmanaayoo toosnaa diin ahaan meesha ay maanta joogaan maalinba meel buu ka shaahayaayoo ka soo jeedaa maalinba kooxdii kacduu hormuud ka yahay uu leeyahay kuwanaa ah saxaabadiiyo arlada dusheeda socota birina wuxuu leeyahay maya kuwan waa khaldayin dib baan ka ogaaday kuwa kaloo haddana horboodaya maalinba meel adiga ka alle waa kaa badbaadinayaa halkaad ku qoysatee baad ku qallajisanaysaa caga adag oo iimaan iyo aqoon iyo islaamnimo ku salaysan iyo nuur baa ilaahay ku siinaya bartaadaas fadhinaysaa markaasaa ilaahay khaatumo wanaagsanna kuugu khatimayaa iimaanka walla kugu ilaaliya subxaanahu wa tacaala nebigu sala allahu alayh wasallam wuxuu ku ducaysan jiray ilaahow islaamnimada igu ilaali marka aan taagnay iyo markaan fadhiyo iyo markaan hurdo ilaahow cadow iyo xaasid midna inay igu wiirsadaan oo igu farxaan ilaahow taasaan kaa magan gelin buu nebigu oran jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh